nolosha Nihan iyo Kemal waxay mar kale bilaabayaan inay isku soo dhowaadaan, inkastoo labadooduba ay wataan waxyaabo aan weli la sheegin. Kemal ma oga in soo laabashadiisu ay saameyn ku yeelan doonto xaaladda Nihan iyo xiriirka ay hadda ku jirto. Markii Kemal iyo Nihan ay mar kale is arkaan kadib sannado badan, kulankooda wuxuu xambaarsan yahay dareen badan. Labadooduba waxay dareemayaan in wakhtigu isbedelay, laakiin xusuustii hore weli ay jirto. Kemal wuxuu doonayaa inuu fahmo sababtii Nihan uga tagtay isaga iyo sababta aysan u sharxin wixii dhacay. Wuxuu xasuustaa maalmaha ay wada faraxsanayeen iyo qorshihii mustaqbalka ee ay lahaayeen. Nihan waxay isku dayaysaa inay xakamayso dareenkeeda, sababtoo ah nolosheeda hadda waxay leedahay mas'uuliyado iyo xaalado adag. Wadahadalkooda wuxuu muujinayaa in kala fogaanshahooda uusan ka dhignayn in dareenkii hore dhammaaday. Kemal wuxuu bilaabaa inuu dareemo in ay jiraan waxyaabo badan oo uusan ogayn. Nihan iyaduna waxay garanaysaa in soo laabashada Kemal ay dib u soo celinayso su'aalo ay muddo dheer ka fogaanaysay. Nihan waxay ku nooshahay xaalad ay ku qasban tahay inay ilaaliso xasiloonida nolosheeda hadda jirta. Emir wuxuu doonayaa in wax walba ay ku socdaan sida uu qorsheeyey, gaar ahaan marka ay timaado xiriirka Nihan iyo dadka ku hareeraysan. Soo laabashada Kemal waxay beddeshaa xaaladda sababtoo ah waxay dib u soo celisaa qof ka mid ahaa waayihii Nihan. Emir wuxuu fahmaa in joogitaanka Kemal uu keeni karo su'aalo cusub iyo dareenno hore. Sidaas darteed wuxuu bilaabaa inuu si dhow ula socdo waxa dhacaya. Nihan waxay isku dayaysaa inay maamusho xaaladda iyadoo aan rabin in wixii hore ay saameeyaan nolosha hadda jirta. Kemal weli ma helin jawaabihii uu raadinayay sannadihii uu maqnaa. Waxa ugu weyn ee maskaxdiisa ku jira waa sababta Nihan ay si lama filaan ah uga baxday noloshiisa. Wuxuu xasuustaa in xiriirkooda uu ahaa mid dhab ah, sidaas darteed ma fahmi karo sida wax walba hal mar u burbureen. Markii uu dib ugu soo laabto Istanbul, wuxuu bilaabaa inuu ogaado in dhacdooyin badan ay ka dambeeyeen kala fogaanshahooda. Kemal wuxuu isku dayayaa inuu fahmo dadka iyo xaaladaha saameeyey go'aankii Nihan. Raadinta uu samaynayo ma ahan oo keliya inuu dib u helo jacaylkii hore, balse sidoo kale waa inuu ogaado xaqiiqada dhacday. Inta uu sii baarayo, wuxuu ogaanayaa in nolosha Nihan ay ka buuxdo arrimo uusan hore u ogayn. Tani waxay ka dhigaysaa inuu sii wado raadinta runta. Kemal iyo Nihan marka ay wada hadlaan, waxaa soo baxaya su'aalo badan oo muddo dheer qarsoonaa. Kemal wuxuu doonayaa inuu ogaado sababta Nihan ay uga dooratay inay ka tagto halkii ay isaga ula dagaalami lahayd dhibaatooyinka jiray. Wuxuu isku dayayaa inuu fahmo waxa ku qasbay go'aankaas. Nihan waxay dareemaysaa culays sababtoo ah ma awooddo inay si fudud u sheegto dhammaan wixii dhacay. Waxay og tahay in runta oo dhan ay beddeli karto aragtida Kemal iyo sida uu arko waayihii hore. Inta ay wada hadlayaan, waxaa muuqata in labadoodu aysan si dhab ah uga gudbin wixii hore. Kemal wuxuu arkayaa in Nihan weli ay leedahay dareen, laakiin sidoo kale uu jiro wax ka hor istaagaya inay si buuxda u hadasho. Wadahadalkoodu wuxuu muujinayaa xiriir aan weli dhammaan. Soo laabashada Kemal waxay bilowdaa inay saameyn ku yeelato xiriirka ka dhexeeya Nihan iyo Emir. Emir wuxuu fahmaa in Kemal uu yahay qof muhiim ah oo ku xiran waayihii hore ee Nihan. Joogitaanka Kemal wuxuu keenayaa su'aalo iyo dareenno uu Emir doonayo inuu ka fogaado. Inkastoo Emir isku dayayo inuu muujiyo deganaansho, haddana wuxuu si dhow ula socdaa xaaladda. Wuxuu doonayaa inuu ogaado waxa ka dhexeeya Kemal iyo Nihan iyo sida ay u saameyn karto noloshooda. Dhanka kale, Kemal weli ma fahmin dhammaan arrimaha ku hareeraysan. Isagu wuxuu diiradda saarayaa raadinta runta iyo fahamka sababta uu xiriirkiisii hore u burburay. Labada nin waxay leeyihiin aragtiyo kala duwan. Kemal wuxuu doonayaa jawaabo iyo caddayn, halka Emir uu doonayo inuu ilaaliyo nidaamka uu dhistay. Nihan waxay sii wadaysaa isku daygeeda ah inay ilaaliso nolosha ay hadda ku jirto, laakiin soo laabashada Kemal waxay ka dhigaysaa arrinta mid aad u adag. Waxay mar kale la kulmaysaa xusuusihii hore iyo dareenkii ay muddo dheer isku dayaysay inay xakamayso. Nihan waxay og tahay in Kemal uu doonayo inuu helo jawaabaha, laakiin iyaduna waxay ka baqaysaa waxa dhici kara haddii dhammaan siraha la ogaado. Waxay ku jirtaa xaalad ay ku qasban tahay inay kala doorato waxa qalbigeedu rabo iyo waxa ay u aragto waajib. Dadka ku hareeraysan ma fahmaan culayska ay sido, sababtoo ah waxay qarinaysaa qayb weyn oo ka mid ah nolosheeda. Inkastoo ay isku dayayso inay iska ilaaliso dhibaato cusub, xiriirkii hore ee Kemal wuxuu sii saameynayaa go'aanadeeda. Nihan waxay ogaanaysaa in wixii dhacay sannado ka hor aysan weli dhammaan. Marka Kemal sii wado raadinta jawaabaha, wuxuu bilaabaa inuu arko in kala tagii isaga iyo Nihan uusan ahayn arrin fudud.
waxaa jira dhacdooyin iyo dad saameeyey sida ay wax u dhaceen. Kemal wuxuu dareemayaa in qayb muhiim ah oo ka mid ah sheekada laga qariyey. Tani waxay sii xoojinaysaa go'aankiisa ah inuu ogaado runta. Wuxuu dib u eegayaa wixii dhacay, isagoo isku dayaya inuu fahmo sababta qofkii uu jeclaa uu u qaatay go'aankaas. Inta uu baaritaanka ku jiro, wuxuu bilaabaa inuu la kulmo caqabado cusub. Dad qaar ma rabaan in arrimihii hore dib loo furo, laakiin Kemal ma doonayo inuu joojiyo. Wuxuu aaminsan yahay in xaqiiqadu muhiim tahay, xitaa haddii ay keento dhibaatooyin. Soo laabashadiisa waxay bilaabaysaa inay beddesho xiriiradii iyo sirihii jiray. Dhammaadka qaybta labaad wuxuu muujinayaa in soo laabashada Kemal aysan ahayn dhacdo yar oo iska gudbi doonta. Joogitaankiisu wuxuu dib u soo celiyey su'aalo hore, dareenno qarsoonaa, iyo xaalado aan weli xal loo helin. Nihan waxay isku dayaysaa inay ilaaliso nolosha ay hadda leedahay, laakiin xiriirkii hore ee Kemal wuxuu mar kale saameyn ku yeeshay qalbigeeda iyo go'aanadeeda. Kemal dhinaciisa wuxuu sii wadaa raadinta xaqiiqda, isagoo doonaya inuu fahmo sababihii sababay kala tagoodii. Emir wuxuu bilaabay inuu dareemo in xaaladdu isbeddelayso, maadaama qofkii hore uga maqnaa nolosha Nihan uu mar kale soo muuqday. Saddexda qof waxay hadda ku jiraan xaalad adag oo ay ku lug leeyihiin jacayl, sir, iyo go'aanno hore loo qaatay. Dhacdooyinka ebisoode 2 waxay dhigayaan bilowga khilaafka weyn ee iman doona.